mas-uuliyiinta ururka samafalka ee Alpha Trust ayaa kulan la yeeshay qaar ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadda Camuud ee magaalada Boorama. mas-uuliyiinta ayaa ardayda kaga digay dhibaatada uu leeyahay tahriibku. warbixin arinta ku saabsan waxa magaalada Boorama inooga soo diray wariyahana Najiib Cabdiwali Cabdixiis. gudoomiyaha hay'adda Alpha Trust Daahir Cali Kulmiye oo uu helinayo agaasimaha guud ee hay'addaasi Cabdisalaam Muumin ayaa kulan baraarujin u sameeyay ardayda jaamacadda Camuud University ee magaalada Boorama, waxaana ujeedka kulankan uu daaraa sidii looga hortagi lahaa dhibaatooyinka iyo aafada tahriibka oo muddooyinkii ugu dambeysay halkii ugu sareysay ka gaaray dhulka ay degaan dadka afka Soomaaliya ku hadla. waa kan gudoomiyaha hay'adda Alpha Trust Daahir Cali Kulmiye oo ka warbixinaya dhibaatada ay leedahay aafada tahriibku. haddii aan ku soo laabto marka qaybta tahriibka waa xanuunka cudurka ugu xun waa dhaliidin yarka marnaba arkayna waxaan social media Facebook ka arkaysiin iyo ninka jooga Mareykanka ama Ingiriiska idinka ka nolol fiican waxa loo baahan yahay dhibka aan ka maraayo aniga barkii aabaan ah laakiin aabaha inta joogo intaas oo kale idin ka maraayo idinka haddii aad waa tahriibaya aabihi quraan in soo baray jaamacadda dhameysteen wax walba aabihi markuu mageedkiisa miro lahaa ama hooyadii haddii aad dhahdaan badan isku tuurayna ama tahriib aadan naftiina qalqashay dadkan tahriibka yani raggan muqallaska ah marnaba iyo maskaxdiina maan doorin waa cudurka ugu xun haddii aad aragtaan qof muqallas ah ama tahriib qof ku baraarunay marka idinka idinka fishan sameeyna qofkaas waxay tahay idinku in soo ataaga si uu lacag idinka sameeyo qofkaas la qof ilaahay ka baqan ma qofkaas oo kale waxa aniga idin kala talinaya anigoo Alpha Trust oo magaceeda ku hadlayay in loogu yeero booliiska xaafadda aad u sheegtaan booliiska si cudurka yuusan idinku faafin. ageesi kale waxa iyagu dhankooda soo dhaweeyay kulankan baraarujinta ka hortagga aafada tahriibka ardayda jaamacadda Camuud University oo sheegay inay tahay talaabo muhiim ah oo markii ugu horeysay uu yahay ururkii ugu horeeyay ee kala hadla arrimahaasi. waxa maanta indala jooga oo ina soo booqday Alpha Trust oo ah urur u adeega bulshada at the same time bixiya emergency services oo maanta inoola jooga laba shay inay nagala qayb qaataan inaguna dhiirigeliyaan oo ah kow abaaraha ka dhacay Somaliland inay ka qayb qaataan inay nagu dhiirigeliyaan inaan ka qayb qaadano. runtii waa yar yahay dad sida ama urur sida intuu isugu yimaado shaqada caynkaas ah sameeya waa yar yahay Soomaalida dhexdeeda ku yar yahay inta badan waxaan la kulanaa ama noo yimaado waa dad cadaan ah iyo dad ajaaniba ee barnaamijyada caynkaas ah noo soo gudbiyaan dhageysano aad baan ugu faraxsanahay runtii shucuurteeda lama soo koobi karo. aad baan soo dhaweynaynaa sidaad noogu timaadeen iyo waxaad noo sheegteen waxaad tirahdeenba wax kastoo sheegteenba waa problem jira imkana taagan waxaan xasuusin tahriibka oo ah ku dib weyn ugu haya ciyaal badan naga dhinteen hooyo badan oo idinkayga ku weydo oo dib jirta aan runtii kulankan baraarujinta ay mas'uuliyiinta sarsare ee hay'adda Alpha Trust ay u sameeyeen ardayda jaamacadda Camuud gaar ahaan qaybta barashada caafimaadka ayaa waxay sidoo kale isla goobtaasi ay ku gudoonsiyeen ardaydaasi lacag iyagoona ardaydana ay yihiin kuwa inta badan si bilaash ah ugu shaqeeya dadka oo ku gaarsiiya dhinacyada adeegyada caafimaadka. Najiib Cabdiwali Cabdixiis, telefishinka caalamiga Universal, magaalada Boorama.